Maxaa ka taqaanaa cudurka sokorta? Maxaase sababa inay sare u kacdo sokorta dhiigga? Maxaase ka iman kara qofka sokorta qaba hadduusan daawooyinkiisa si fiican u isticmaalin ama uusanba iska daaweyn? Haddaad jeceshahay inaad wax ka baratid cudurka sokorta, fadlan sii daawo videoga ilaa dhammaadkiisa. Hana iloobin inaad like ii saartid, subscribe-kana iska saar, waa bilaash. Marka hore waxaan ka hadlaynaa qofka normalka dheefshiidkiisa sida uu shaqeeyo iyo weliba siduu jirka u isticmaalo cuntada. Marka aad cuntid cunto carbohydrate ku jirto, dhanka ay dheefshiidka ayay aadaa, kadibna caloosha ayay tagaysaa. Caloosha dhexdeeda waa lagu jajabinayaa ilaa ay nafaqooyin ugu yaryar ayaa laga dhigayaa. Wixii ugu yar ay noqon karto waa glucose ama sokor. Glucose-ku waa nooc ka mid ah sokorta. Kadib wuxuu aadayaa mindhiciraha yaryar, kadibna dhiigga ayuu sii dhex galayaa. Glucose-ka waxaa lagu wareejinayaa jirka, waxaana la geynayaa meelaha looga baahan yahay. Glucose-ka markuu dhiigga ka soo baxo oo yimaado cell-ka ama unugga jirka, ma geli karo gudaha, uma geli karo, waa inuu loo ku xiran yahay oo kaleeto. Pancreas-ka ayaa waxay soo daysaa hormoon la yiraahdo insulin. Hormoonkaas wuxuu u shaqeynayaa sida furaha oo kale, waxa uuna ku dhagayaa unugga korkiisa. Kadib markuu ku dhago sidii quful la furay oo kaleeto, waxaa u furmaya glucose-ka channel-yaasha oo ka galaya unugga dhexdiisa. Glucose-ka wuxuu dhex galayaa cell-ka ama unugga, kadibna waa la isticmaalayaa oo energy ahaan ayaa loo isticmaalayaa. Haddaba qofka sokorta ama diabetes-ka qaba jirkiisa maxaa ka qaldama? Horta diabetes-ka waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc, diabetes type 1 iyo diabetes type 2. Sawirka koowaad waa qofka normalka ah. Glucose-ka waa kan guduudan, kadib insulinka cagaaran ayaa la soo deynayaa. Glucose-kana jirka ayuu dhex aadayaa. Kadib sawirka labaad, insulin lama soo deynayo. Pancreas-ka insulin maba soo deynayso, kadibna glucose jirka ma geli karo. Midka saddexaad, insulinka waa la soo deynayaa, laakiin unugyada jirka ayaa resistant ku ah oo glucose-kii gudaha uma geli karo. Marka glucose-ka dhiigga dhexdiisa ayuu iska joogayaa. So diabetes type 1-ka insulinka ma la soo deynayo, pancreas-ka soo ma deynayso. Type 2-gana insulinka waa la soo deynayaa, laakiin cells-ka ayaa resistant ku ah. Marka labadooda waxay keenayaan in glucose-ka ama sokorta uu dhiigga iska dhex joogo. Glucose-ka dhiigga ku jira markuu ka kormaro sida normalka ah waxaa lagu yaqaanaa calaamadahan. Waxaa ka mid ah daalka. Daalka wuxuu ka imaanayaa qofka jirkiisa wuxuu u baahan yahay energy si uu u shaqeeyo. Energy-gana wuxuu ka helaa cuntada ama glucose-ka. Glucose-ka maadaama uusan jirka isticmaali karin, sidii aan hore ugu soo sheegnay, qofka daal badan ayaa ka muuqanaya. Waxaa kale oo qofku isku arkayaa musqul ama kaadi zaid u badatay. Sidoo kale qofka waxaa lagu arkayaa inuu miisaan badan ka dhumay. Diabetes type 1-ka inta badan waxay saameysaa carruurta iyo dadka dhalinta yar. Risk factor-ka ugu weyn waa family history-ga. Diabetes type 2-ga waxay ku badan tahay dadka da'doodu ay ka weyn tahay 45 sano. Risk factors-ka waxaa ka mid ah qofka inactive-ka ah oo aan shaqada badan qabanin, qofka baruurta badan, family history-ga iyo age-ka, iyo weliba race-ka ama qowmiyadda qofka uu ka soo jeedo. Qowmiyadaha ay ku badan tahay diabetes type 2-ga waxaa ka mid ah dadka Afrikaanta ah, dadka Hispanic-ka ah, American Indian iyo American Asian-ka dadka ah. Qofka diabetes-ka qaba ama sokorta hadduusan controlin ama uusan iska daaweyn, waxaa ku dhici kara inuu indhihiisa ay daciif ka noqdaan, ugu dambeyntiina uu indho beelo. Sidoo kaleeto waxaa ku dhici kara kidney failure ama kelyaha ay ka shaqo gabaan. Waxaa kaloo ziyaadaya riskiga uu qabo cudurrada wadnaha iyo weliba stroke-ga. Haddaa ilaa halkaan soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada. Waxaan rajeynayaa hal mise laba inaad ka faa'iiday videogan. Hadday sidaas tahay, fadlan like saar, subscribe ii saar si aad uga faa'iidaysato waxyaalo badan oo caafimaadka u wanaagsan. Waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah.